faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaalo qaraar oo maanta ka dhacay deegaanka Boos Hareeri ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee fadhigoodu yahay deegaanka Boos Hareeri ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo kaabiga ku haya degmada Aadan Yabaal ee gobolkaasi ay weerar culus ku soo qaadeen xubno ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka oo iskarabsanaya ayaa la soo warinayaa in ay weerarka isaga difaaceen si adag waxaana la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. qasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay dagaalka oo socday dhowr saacadood waxaana la soo wariyay inay ku geeriyoodeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamo kale oo aad u fara badan kuwaas oo qayb ka ahaa howlgalka iska caabinta ah ee ka dhacay deegaanka Boos Hareeri ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waana sii wadi doonaa hadii Ilaahay idmo waana loo istaagay looma kala hirin maamul iyo amni iyo ciidan iyo dhammaan iyo shacab. dadka geeriyooday waxaa ka mid ah abaanduulihii guutada koobaad ee daraawiishta Korneel Abuukar Cabdullaahi Raagi oo ku magac dheeraa Garmaqaate kana mid ahaa xubnaha howlgalka horkacayay ee ka dhacay Boos Hareeri gobolka Shabeellaha Dhexe. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya weli war rasmi ah kama soo saarin howlgalka ballaaran ee geystay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee maanta ka dhacay Boos Hareeri laakiin weli waxaa sii soconaya howlgallo baaritaano ah oo ay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanku ay ka sameynayaan deegaanka Boos Hareeri iyo hareerihiisa. Al-Shabaab maalmihii la soo dhaafay waxay howlgallo culus ku soo qaadeen deegaano dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana qaar ka mid ah weli ka soconaya howlgallo ballaaran oo iska caabin ah oo dowladda iyo dadka deegaanku ay iska kaashanayaan. Kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.